waxa aan booqanaynaa xaafadda ay ku nool yihiin qabiil wada indhala, yacnii aanan waxba arag. Waa tuulada lagu magacaabo Dalikombe. Waxaa lagu naanaysaa xaafaddii indhoolayaasha, waxaana ay ku taalaa saxaraha waddanka Mauritania. Waa dalka dhaca waqooyi galbeed ee qaaradda Afrika. Marka aad joogto iridka hore ee tuuladan, waxaad arki kartaa carruur yaryar oo ku hor cayaaraya cariishada la dego ee hoyga u ah. Laakiin ha ilaabin, arag ma jiro qof kasta oo ku nool halkan. Dadku waxay u socdaan si caadi ah, noloshuna kama duwana tan ay ku nool yihiin kuwa indhaha leh. Waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah dadka tuuladan degan, inkastoo ay indhoolayaal yihiin, haddana ma isticmaalaan ul, umana baahna qof gacanta qabta. Waxa ayna u socdaan si caadi ah. Iimaanku waa cajiib, bal eeg ninkan odayga ah. Waxaa lagu magacaabaa Sheekh Maxamed Maxamuud. Waa imaamka masjidka iyo macalinka dugsi quraanka lagu barto oo tuuladan ku yaala. Sidaasi oo ay tahay, waa nin indhool ah oo la mid ah dadka tuulada. Sheekh Maxamed Maxamuud sidoo kale waa aabba dhalay dhowr cayaal ah oo indhala sidiisa oo kale. Laakiin waa hogaamiyaha dhinaca diinta ee tuuladan indhoolayaasha. Waxa uu yiri isaga oo ka sheekaynaya tuuladan iyo xaaladda ay ku nool yihiin: waxaan ahay macalinka xaafadan, waxaan ilmaha baraa quraanka. Sida ay ku bartaan waa ay adag tahay, maxaa yeelay arag ma jiro. Laakiin waxa ay xifdiyaan waxa ay maqlaan oo kaliya, ayuu yiri Sheekh Maxamed Maxamuud oo qudhiisu aragala. Arrinta cajiibka ah waa in ay dadka deegaanka oo dhan ay yihiin xaafidul qur'aan. Imaamka tuulada waxa uu sidoo kale ka waramay sida ay ku soo bilaabatay indhala'aanta dadka tuuladan. Waxa uu yiri, arrintan waxay soo bilaabatay goor hore oo qarniyo ay ka soo wareegatay. Haweeney dadka qabiilkan ka mid ahayd ayaa habeenada ka mid ah ku riyootay nin aysan wejigiisa arkin. Ninkii ayaa u sheegay in aysan welwelin oo ay isdejiso. Ka gadaal waxa uu u sheegay in ay dhali doonto carruur indhool ah oo araggala, kuwa ay sii dhalaan iyo faracooda dambe, xataa in ay aragga beeli doonaan, ayuu u sheegay haweeneyda ninka ay riyada kula kulantay. Laakiin waxa uu raaciyay in ay khayr ugu jirto arrintaasi. Markaasi wixii ka dambeeyay, ilmihii ay dhashay, kuwii ay sii dhaleen, ilaa maantadan waa mid soo jirtay indhala'aantii ka soo farcantay. Waxaase la yaab ah sida ay u dhawowday riyadii ay ku riyootay haweeneydii, iyo sida ay ugu faaftay ama ay u wada gaartay qabiilka oo dhan. Ilaa ku dhawaad 10 farac ayayna soo jirtay musiibadani. Tuuladan waxay caasimadda dalka Mauritania ay u jirtaa masaafo dhan 1,000 kiiloomitir, waxaana ay dhacdaa goob saxaro ah oo bacad ku hareeraysan. Xaafaddii indhoolayaasha ayaa loogu yeeraa. Sheekadeeduna waxay dhowaan caan ka noqotay warbaahinta caalamka iyo baraha bulshada markii ay booqdeen dalxiisayaal ka yimid daafaha adduunka. Ninkan cadaanka ah ayaa ka mid ah dadkii booqday tuuladan. Waxaase la yaab leh, waxaa hogaamiya oo xaafadaha kala tustusaya mid ka mid ah dadka tuulada oo araggala. Jid kasta iyo xaafad kasta oo tuuladan ka mid ah waxa ay lugeeyaan iyaga oo araggala, umana baahna cid ka caawisa ama qalabka indhoolayaasha. Araggu ma aha kaliya indhaha sida ay aaminsan yihiin dadka deegaankan. Waxay wax ka arkaan qalbiga, sida ay ku muujiyeen waraysyadii laga qaaday. Waxay dunidu ku baraarugtay jiritaanka qabiilkan araggala markii laga sameeyay barnaamijyo iyo filimaan ka turjumayay nolosha xaafaddii indhoolayaasha. Inkasta oo qaar indho leh ay ku jiraan, wax kasta oo aan sheegnay waxa ka muhiimsan yaqiinta Rabbi iyo samirka ka muuqda dadkan araggala, adkaysiga, iyo sida aadan marnaba uga dareemayn in ay wax ka maqan yihiin iyaga oo aan wax arag. Waxaad la yaabaysaa iimaankooda iyo ku qanacsanaanta ay ku qanacsan yihiin qadarka Eebbe. Bal adigu aragtidaada hoos nagu la wadaag, muuqaalkana laag saar oo sii share gare